dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aan diiradda ku saari doono saxafiyiinta Soomaalida ah oo lagu dilay dalka Soomaaliya inta u dhaxaysay sanadii 2000 ilaa iyo sanadka 2013 waxaan sidoo kale barnaamijkan gaarka ah uga hadli doonaa warbixin ay dhowaan soo saareen ururka wariyaasha aan xuduudda lahayn sidoo kale barnaamijka waxaynu ku soo qaadan doonaa magacyada shakhsiyaadkii dunida ugu caansanaa ee geeriyooda sanadka 2013 dhageystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii gaarka ahaa aan ku bilaabay ururka wariyaasha aan xuduudda lahayn ayaa warbixin ay soo saareen waxa ay kaga hadleen tirada wariyaasha dunida lagu dhibaateeyay sanadkan dhamaadka ah waxa ayna sheegeen in sanadkan oo aan weli dhammaan dunida lagu dilay 71 wariye warbixintani waxaa lagu sheegay in sanadkan wariyaal badan la dilay wadamo ay ka mid yihiin Soomaaliya, Syria iyo Pakistan sida warbixinta lagu sheegay ururka wariyaasha aan xuduudda lahayn waxa ay sheegeen in 71 wariye ee la dilay ay ka dhigan tahay in 20% ay ka yartahay wariyaasha caalamka la dilay sanadkii 2012 aynu ka soo gudubnay waxaa la xiray 826 wariye halka loo hanjabay 2160 wariye waxaa sidoo kale warbixinta lagu sheegay in sanadkan qaaradda Afrika lagu dilay 23 wariye halka qaaradda Aasiyana lagu dilay 24 wariye sidoo kale waxaa la afduubay in ka badan 129 wariye warbixinta waxaa sidoo kale lagu sheegay in 87 wariye lagu qasbay in ay dalkooda ka cararaan oo ay wadamo kale tagaan 39 wariyaasha waxaa lagu dilay furmaha dagaalka waxa ayna ahaayeen wariyaal warbaahinno kala duwan u shaqeynayay halka 8% ay ahaayeen wariyaal madax bannaan waxaa sidoo kale warbixinta lagu sheegay in 4% ay dumar ahaayeen wariyaashii la dilay hay-addu waxa ay walwal ka muujisay kororka beegsiga wariyaasha lagu bartilmaameedsanaya shaqadooda oo kaliya sida warbixinta lagu xusay xogayaha guud ee ururka wariyaasha aan xuduudda lahayn Master Diloria ayaa sheegay in uu jiro koror la xiriiro in la beegsado wariyaasha wadamada saxaraha ka hooseeya oo ay Soomaaliya ugu horeyso waqooyiga Afrika gobolka bariga dhexe iyo wadamo kale oo ay Latin America ka mid tahay ayaa ah wadamada ugu badan ee wariyaasha lagu dhibaateeyo waxaana sanadkii labaad weli safka hore ku jira wadamada Soomaaliya iyo Pakistan iyo Syria halka qaybta hoosena ay ka hogaaminayaan wadamada Philippines, Mexico iyo Brazil xogtani waxa ay muujinaysaa in 71 wariye ee la dilay 37% u shaqeynayeen wargeysyo sidoo kale 30% waxa ay ka tirsanaayeen idaacado halka 30% ay telefishinno u shaqeynayeen sidoo kale warbixintu waxay sheegtay 3% in ay website-yo ka howlgalayeen hay-adani waxa ay ku tilmaamtay dalalka China, Eritrea, Turkiga, Iran iyo Syria in ay yihiin 5 dal ee hogaamiya wadamada wariyaasha lagu xiro ee haddana lagu jirdilo dhanka Soomaaliya marka la eego warbixinta dawladda iyo
al-shabaab waxa ay ku eedeysay dhibaataynta wariyaasha soomaalida ee dalka ka howlgala. iminkana dhegaystayaal ku soo dhowaada magacyada shakhsiyaadkii dunida ugu caansanaa ee geeriyooda sanadka 2013. haddaba ma la socotaa dhegaystow in master Geba uu ahaa jenaraal u dhashay dalkaasi Vietnam, kaas oo dejiyey qorshihii looga guuleystay wadamada Mareykanka iyo Faransiiska xilliyadii ay ku sugnaayeen dalkaasi. waxa uuna geeriyooday sanadka 2013 isagoo da'diisa lagu sheegay 102 sano jir. sidoo kale ma ogtahay dhegaysow in sanadka 2013 ugu yaraan 3 hogaamiye oo sarsare oo ka tirsan ururka Taliban Pakistan lagu dilay weerar ay qaadeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Mareykanka. hogaamiyaasha la dilay waxa ay kala ahaayeen Mullah Nasir Waliyullaahi Raxmaan iyo hogaamiyihii ugu sareeyay kooxdaasi Xakiimullaahi Maxsuub. mase la socotaa dhegaystow in ra-iisul wasaarihii ugu horeeyay ee dumar ah ay yeelato boqortooyada dalkaasi Ingiriiska Margaret Thatcher ay sanadka 2013 geeriyootay iyadoo da'deedana lagu sheegay 87 sano. sidoo kale ma ogtahay dhegaystow in Nilton Santos waa ciyaaryahan u dhashay dalka Brazil oo ciyaaray 3 koob oo adduun. waxa uuna koobabka ku guuleystay 2 jeer. waxa uu ku dhintay magaalada Rio de Janeiro ee dalka Brazil isagoo da'diisana lagu sheegay 88 jir inuu ahaa xilligii uu geeriyoonayay. mase la socotaa dhegaystow gabadha lagu magacaabo Jihan Khan oo jilaa ka ahayd Hollywoodka in meydkeeda laga helay gurigeeda oo ku yaala magaalada Mumbai ee dalka Hindiya. booliiska ayaa sheegay in ay iyadu isdishay. mase la socotaa dhegaystow in madaxweynihii hore ee Vietnam Hugo Chavez oo ah madaxweyne ay aad u jeclaayeen dadka reer Venezuela uu isna geeriyooday sanadka 2013 isagoo da'diisa lagu sheegay 58 sano jir. waxa uuna u geeriyooday cudurka kansarka. mase la socotaa dhegaystow in Helen Thomas oo muddo 50 sano ah wariye ka ahayd aqalka cad ee Mareykanka ee geeriyootay isla sanadka 2013. mase la socotaa dhegaystow in qoraaga caanka ahaa ee u dhashay dalkaasi Nigeria uu geeriyooday isagoo 82 jir ah. waxaana lagu xusuustaa buugaagtii uu ka qoray nolosha qaaradda Afrika. mase ogtahay dhegaystow in Nelson Mandela uu geeriyooday isagoo 95 jir ah. waxa uu ahaa qareen iyo nin u ololeeya xuquuqda dadka madowga ah ka hor inta aan la xirin. marka uu xabsiga ka soo baxay waxa uu noqday madaxweynihii ugu horeeyay ee madow ah ee xukuma Koonfur Afrika. dhegaystayaal taasina waxay ahayd warbixintii aynu ka diyaarinay shakhsiyaadkii dunida ugu caansanaa ee geeriyooday sanadka 2013. haddaba waxaynu weli ku guda jirnaa barnaamijkeenii gaarka ahaa ee dhegaystow ma la socotaa in Soomaaliya ay ka mid tahay wadamada ugu badan ee lagu dilo saxafiyiinta. haddaba tan iyo burburkii dowladii militariga ee Maxamed Siyaad Barre ayaa Soomaaliya waxa ay noqotay meelaha ugu halista badan leh ee lagu dilo saxafiyiinta. inkastoo wariyaal fara badan la dilay markii ay burburtay dowladii militariga ahayd ee uu hogaaminayay Maxamed Siyaad Barre, balse qormadeena ayaan waxaynu ku eegi doonaa sanadkii 2000 ilaa iyo sanadka 2013 inta u dhaxaysa wariyaashii lagu dilay dalka Soomaaliya. January 26 sanadkii 2000 waxaa lagu dilay magaalada Muqdisho Axmed Kaafi Cawaale oo u shaqeynayay Radio of Somali People.
January 24 sanadkii 2003 waxaa lagu dilay magaalada Baydhabo Cabdulaahi Madkeer oo u shaqeynayay radio DMC. sanadkii 2005 Juun 5 2005 waxaa degmada Afgooye lagu dilay wariye Duniya Muxudiin Nuur oo ka tirsaneed shaqaalaha idaacadda Horn Afrique iyo Capital Voice. sanadkii 2007 Febraayo 16 sanadka 2007 waxaa lagu dilay Baydhabo Cali Maxamed Cumar oo ka tirsanaa shaqaalaha radio Warsan. May 5 sanadka 2007 waxaa lagu dilay Gaalkacyo Maxamed Cabdulaahi Khaliif oo ka tirsanaa idaacadda Codka Nabadda. May 16 2007 waxaa lagu dilay Jowhar Axmed Xasan Mahad oo ka shaqeynayay radio Jowhar. May 16 sanadka 2007 waxaa lagu dilay Jowhar Abshir Cali Gabre oo ka tirsanaa shaqaalaha idaacadda Qur'aanka Kariimka iyo radio Jowhar. 11 Agoosto sanadkii 2007 waxaa lagu dilay magaalada Muqdisho Mahad Axmed Cilmi oo ka howlgalayay idaacadda Capital Voice iyo Horn Afrique. isla maalintaasi waxaa magaalada Muqdisho ku geeriyooday Cali Iimaan Sharma Arke oo ka qayb galaya aaska Mahad Axmed Cilmi xilli baabuurkiisa loogu rakibay miino. Agoosto 24 sanadka 2007 waxaa lagu dilay Baar Dheere Cabduqaadir Maxamed Macalin Kaskey oo halkaasi radio Banaadir uga soo warami jiray. Oktoobar 19 sanadka 2007 ayaa Muqdisho lagu dilay Bashiir Nuur Geedi oo radio Shabeelle ka tirsanaa. 2008 January 28 waxaa lagu dilay Kismaayo Xasan Kaafi Xareed oo ka tirsanaa wakaaladda wararka ee Somali National News Agency. Juun 7 2008 ayaa Kismaayo lagu dilay Nasteex Daahir Faarax oo ka tirsanaa idaacadda BBC-da isla markaana uga soo warami jiray magaalada Kismaayo. 2009 bishii January 1 waxaa lagu dilay Afgooye Xasan Mayo Xasan oo radio Shabeelle ka tirsanaa. Febraayo 2 2009 Muqdisho ayaa lagu dilay Saciid Tahliil Axmed oo xilligaasi ahaa madaxii idaacadda Horn Afrique. May 22 2009 Muqdisho waxaa lagu dilay Cabdirasaaq Maxamed Warsame oo radio Shabeelle ka tirsanaa. 26 May 2009 waxaa lagu dilay magaalada Beledweyne Nuur Muuse Xuseen oo ka tirsanaa idaacadda Qur'aanka Kariimka ee magaalada Muqdisho. Juun 8 2009 waxaa lagu dilay magaalada Muqdisho Mukhtaar Maxamed Hiraabe oo radio Shabeelle ka tirsanaa. 4 Juulaay 2009 waxaa lagu dilay magaalada Muqdisho Maxamuud Maxamed Yuusuf oo radio Qur'aanka Kariimka ka tirsanaa. bishii Diseembar 3 qarax ka dhacay Hotel Shamow waxaa ku geeriyooday 3 wariye oo kala ahaa Cabdiqafaar Cabduqaadir oo ahaa wariye madax bannaan, Maxamed Amiin Aadan Cabdulle oo ka tirsanaa idaacadda Shabeelle iyo Xasan Zuweer Xaaji Xasan Fantastic oo isaguna ka tirsanaa TV-ga Al Carabiya. sanadkii 2010 May 4 sanadka 2010 Muqdisho ayaa lagu dilay Sheekh Nuur Maxamed Abkey oo ka mid ah qabiir saxaafadeed kana howlgalayay radio Muqdisho. 24 Agoosto 2010 Muqdisho ayaa lagu dilay Barqad Cawaale oo ka tirsanaa Human Rights Radio. Agoosto 31 2010 Muqdisho ayaa lagu dilay Cabdulaahi Cumar Geedi oo ka tirsanaa radio Daljir. sanadkii 2011 Agoosto 4 sanada 2011 Muqdisho ayaa lagu dilay Faarax Xasan Sahal oo ka tirsanaa radio Simba ee Muqdisho. 18 Diseembar sanadkii 2011 Muqdisho ayaa lagu dilay Cabdisalaan Sheekh Xasan Xiis oo ka tirsanaa TV-ga caalamiga ah ee Home Cable TV. 2012
bishii January 28 sanadka 2012 Muqdisho ayaa lagu dilay Xasan Cusmaan Cabdi oo ahaa agaasimihii idaacadda Shabeelle. Febraayo 28 2012 waxaa Muqdisho lagu dilay Abuukar Xasan Maxamuud Kadaf oo ahaa agaasimihii idaacadda Soomaaliweyn ee magaalada Muqdisho. 4 Maarso sanadkii 2012 waxaa magaalada Gaalkacyo lagu dilay Cali Axmed Cabdi oo ahaa wariye ka shaqeynayay Radio Gaalkacyo. 5 Abriil 2012 waxaa magaalada Beledweyne lagu dilay Mahad Salaad Aadan oo ahaa wariyihii halkaasi uga soo warami jiray idaacadda Shabeelle. 2 bishii May sanadkii 2012 waxaa magaalada Gaalkacyo lagu dilay Farxaan James Cabdile oo ka howlgalayay Radio Daljir. 23 May 2012 Muqdisho ayaa lagu dilay Axmed Cadow Canshuur oo ka tirsanaa idaacadda Shabeelle ee magaalada Muqdisho. 31 bishii Juulaay sanadka 2012 waxaa magaalada Muqdisho lagu dilay majaajiliiste Cabdi Jaylaani Malaaq Marshaale oo ahaa majaajiliistii xilligaasi ka tirsanaa shaqaalaha idaacadda Kulmiye ee magaalada Muqdisho. 11 Agoosto sanadka 2012 Muqdisho waxaa lagu dilay Maxamuud Cali Buneyste oo ahaa wariye madax bannaan. 12 Agoosto sanadka 2012 waxaa magaalada Muqdisho lagu dilay Yuusuf Cali Cusmaan oo ahaa maamulihii xiriirka warbaahinta ee wasaaradda warfaafinta. 16 Sebtembar sanadka 2012 waxaa magaalada Muqdisho lagu dilay kaamiramaan Zakariya Maxamed Maxamuud Macalin. Sebtembar 20 2012 qarax ismiidaamin ah oo lala beegsaday maqaayadda The Village ee magaalada Muqdisho waxaa ku geeriyooday Cabdiraxmaan Yaasiin Cali oo ahaa agaasimihii Radio Xamar. waxaa sidoo kale isla qaraxaasi ku geeriyooday Cabdisataar Daahir Sabriye oo ahaa madaxii barnaamijyada ee TV-ga qaranka Soomaaliyeed iyo Liibaan Cali Nuur oo ahaa madaxii wararka ee telefishinka qaranka Soomaaliyeed. 21 Sebtembar sanadka 2012 Muqdisho ayaa lagu dilay Xasan Yuusuf Afsuge oo ka shaqeynayay Radio Maanta. 27 Sebtembar sanadka 2012 waxaa Muqdisho lagu dilay oo meydkiisa laga helay wariye Cabdiraxmaan Maxamed Cali oo ahaa wariye wax ka qora ciyaaraha. 28 Sebtembar sanadka 2012 Muqdisho ayaa lagu dilay Axmed Cabdullaahi Faarax oo ahaa wariye u shaqeynayay wakaaladda wararka ee Yemen ee Saba. 23 Oktoobar sanadka 2012 waxaa magaalada Laascaanood lagu dilay Axmed Faarax Ilyaas oo loo yaqaanay Axmed Saakin oo ka tirsanaa TV-ga caalamiga ah ee Universal TV. 28 Oktoobar sanadka 2012 waxaa magaalada Muqdisho ku geeriyooday Maxamed Maxamuud Tuuryare oo isla 21 bishaasi lagu dhaawacay magaalada Muqdisho. 29 Oktoobar sanadka 2012 Muqdisho ayaa lagu dilay Abwaan Warsame Shire Cawaale oo ka tirsanaa qaybta majaajilada ee Radio Kulmiye. haddaba sanadkan sii dhammaanaya ee 2013 ayaa Muqdisho lagu dilay wariyaal dhowr ah. 28 Janaayo sanadka 2013 waxaa magaalada Muqdisho lagu dilay Cabdixareed Cusmaan Aadan oo ka tirsanaa wariyaasha idaacadda Shabeelle ee magaalada Muqdisho. waxa uuna noqday wariyihii ugu horeeyay ee sanadka 2013 lagu dilo magaalada Muqdisho. 18 Maarso sanadka 2013 waxaa magaalada Muqdisho lagu dilay Maxamed Cali Nuxurke oo ka tirsanaa shaqaalaha Radio Maanta ee magaalada Muqdisho. 24 Maarso 2013 waxaa magaalada Muqdisho lagu dilay Raxmo Cabduqaadir oo la sheegay in ay ka soo shaqeysay Radio Cabudwaaq sida ay qoreen warbaahinada Soomaalida balse lama xaqiijin dilkaasi.
14 abriil sanadka 2013 waxaa qarax ismiidaamin ah oo lala beegsaday xarunta maxkamadda gobolka Banaadir ku geeriyooday Maxamed Xasan Xabeeb oo ahaa afhayeenkii maxkamadda gobolka Banaadir. 21 abriil sanadka 2013 waxaa magaalada Muqdisho lagu dilay Maxamed Ibraahim Raage oo ka tirsanaa shaqaalaha raadiyo Muqdisho iyo TV-ga qaranka Soomaaliyeed. 7 Juulaay 2013 waxaa magaalada Gaalkacyo lagu dilay Liibaan Cabdullaahi Faarax Liibaan Qaran oo ka tirsanaa raadiyo SBC iyo TV-ga Kalsan TV. 17 Agoosto 2013 waxaa magaalada Muqdisho lagu dilay Injineer Axmed Shariif Xuseen oo ka shaqeynayay raadiyo Muqdisho. 26 Oktoobar 2013 waxaa isbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho ku geeriyooday wariye Maxamed Maxamuud Timacade oo dhowr maalin ka hor lagu dhaawacay isla magaalada Muqdisho. dhageystayaal waxaanu intaasi ku soo afmeeraynaa barnaamijkeenii gaarka ah, balse intaan ka bixin barnaamijka waxaan jeclaan lahaa in aan halkaani fariin uga diro dadka caadaystay dilka saxafiyiinta Soomaaliyeed. waxaana leeyahay inkastoo aad disheen wariyaal aad u qiimo badan oo bulshadooda howl wanaagsan u hayay, haddana ma aysan idiin suurto gelin hadafkiinii ahaa in aad cabsi gelisaan amaba aad joojisaan shaqada ay saxafiyiinta u hayaan bulshadooda Soomaaliyeed. sidoo kale waxaad arki kartaan in sanadba sanadka ka sii dambeeya ay sii badanayaan saxafiyiinta Soomaalida ee naftooda iyo u huraya in ay bulshadooda u adeegaan. miyaysan habbooneen in aad Ilaahay u laabataan oo aad joojisaan dilka saxafiyiinta Soomaaliyeed ee aan waxba galabsan? wariyuhu ma ahan mid qori sita ama dagaal kula jira koox gaar ah, balse waa shakhsi soo bandhiga waxa ay bulshadiisa u baahan tahay. waxaan dhammaan saxafiyiinta Soomaaliyeed u rajaynayaa, gaar ahaan kuwa ku sugan gudaha dalka Soomaaliya, in ay helaan cadaalad, nabadgelyo iyo xorriyad buuxda sanadka cusub ee 2014. waxaa barnaamijka idiin soo saaray halkaana idinkala socodsiinayay anigoo ah Mahad Maxamuud Cali Codka. dhageystayaal waxaa idinkaga tegayaa sanad cusub oo kheyr leh insha Allah. adduunyada warkiyo wacalka hageen waagii baryaba warsidaha keen wixii soo kordhiyo siduu yahay wadcigu. adduunyada warkiyo wacalka hageen waagii baryaba warsidaha keen wixii soo kordhiyo siduu yahay wadcigu. awdhimi waxbana wariyaa sacdeen gudan waajibku u waday bulshada. awdhimi waxbana wariyaa sacdeen
warsugan warka laga cabee misna laga wafiyo waayaha jira dadweynuhu walaa wuxuu kaga baxaa inuu helo warsugan warka laga cabee misna laga wafiyo حقه